waxaa loo soo gaabiyaa Human Immunodeficiency Virus. Waa virus target gareeyo ama immune systemka. Muddo kadib difaaca jirka hoos ayuu u dhacaa, taasoo fududaynayso in jirka uusan iska difaacin infekshanada iyo kansarada, taasoo ugu dambeyn keenayso AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS waxaa loo qaybiyaa laba nooc oo waaweyn, HIV-1 iyo HIV-2. Nooca koowaad ee HIV-ga waxaa laga helaa Mareykanka iyo adduunka oo dhan. Noocan labaad ayaa wuxuu yahay mid dhif ah, waxaana laga helaa galbeedka Afrika iyo Furta Asia. Sidaa darteed HIV-1ka uu ka caansan yahay HIV-2ga. Hagaag HIV-gu wuxuu target gareeyaa CD4 cells, unugyada dusha sare ku sito CD4, sida macrophageska, T helper cellska, dendritic cellska. Dhammaan unugyadan waxay leeyihiin CD4. Haddaba waxay target u yihiin HIV-ga. CD4ka wuxuu fududeeyaa in seelka uu la xiriiro lana falgalo viruska. T-cellka waxaa ahmiyad gaar u leh CD4 receptor si uu u fuliyo weerarkiisa. aad buu muhiim u yahay qurubkan yarka. Sidaas si la mid ah wuxuu muhiim u yahay HIV-ga inuu dhex galo seelka gudihiisa. HIV-ga wuxuu ku dhagaa CD4ka, gaar ahaan receptorka qaybtiisa GB120 ama 120. Waxaa sidoo kale caawimaad u fudin doono receptor oo loo yaqaano core receptor oo gudaha ah. Sidaa darteed HIV-ga wuxuu u baahan yahay inuu helo labadan receptor si uu u galo gudaha unugga. Receptorada core receptorka loo yaqaano ee ugu caansan waxaa ka mid ah CXCR4 oo uu isticmaalo T-cellka. Sidoo kale core receptorka CCR5 oo isticmaalaan T-cellka, macrophageska, monocyteska iyo dendritic cellska. Receptoradan ayaa waxay aad muhiim ugu yihiin HIV viruska si uu u dhex galo seelka gudihiisa. Waxaase jiro dad qabo mutation ku dhaco tiinka receptorkan. Dadka noocaas ah waxay adkaysi u leeyihiin in uu ku dhaco xanuunkan HIV-ga. Sidaa daraaddeed way ku adkaanaysaa viruska inuu gudaha u galo unugyadan ama jiradii inay aad u faafto. Balse dadka aanan qabin mutationka receptorka markii uu qabsado HIV-ga waxaa loo gudbiyaa gudaha, waxaana lagu milaa cytoplasmka. Sida aan ognahay, viruska HIV-ga waa single strand ama waa hal duub oo RNA ah, waana retrovirus. Viruskan maadaama uu yahay single strand ama hal fidqo maadaama uu yahay, wuxuu caan ku yahay, wuxuu leeyahay enzyme loo yaqaano reverse transcriptase, kaasoo u fududeynayo in uu samaysto koobi labaad oo asiga ah, kaasoo loo yaqaano proviral DNA ama DNA-gii viruska ka turjumaya DNA. Kadibna wuxuu ku milmi doonaa DNA-da hoostiga ama martigeliyaha, midaasoo u fududeynayso in virusyo badan uu soo saaro. Haddaba markii difaaca la kiciyo oo seelka la active gareeyo, wuxuu bilaabayaa in viruskiina soo saarto. Mar kasta oo la kiciyo immune systemka, sida virus markuu soo galo ama infection la dareemo, viruskana wuu isbadinayaa, wuu sii ziyaadinayaa, badanayaa seelka gudihiisa. Waxaana soo baxayo noocyo cusub oo viruska ah, soo duulaan u aadayo bannaanka. Qodobka muhiimka ayaa wuxuu yahay HIV-ga wuxuu caan ku yahay qaladaad uu sameeyo markii uu replicationka samaynayo ama uu isbadinayo. Qaladaadka dhaco xilliga replicationka waxay keenaysaa in strainno kala duwan ama noocyo kala duwan oo HIV-ga ay soo baxaan, inkastoo ay weli isku mid yihiin una weerarayaan unugyada sidii kii koowaad oo kale. Sidaana waxaa loo yaqaanaa viral tropism. Haddaba HIV-ga qofku wuxuu qof kale ugu gudbin karaa galmada. Haddaba xilliga uu bilowga yahay waxaa loo yaqaanaa acute infection. HIV-ga nooca loo yaqaano R5 strain wuxuu ku dhagaa CCR5 ay leeyihiin macrophageska, T-cellska iyo dendritic cells. Dendritic cellska waxay suran yihiin mucosal tissue. Markii infectionka uu qaado wuxuu aadaa lymph nodeska, kaasoo ay ku jiraan unugyo badan oo difaaca jirka ah, sida T helper cells, macrophages iyo dendritic cells kale. Faafitaanka ayaa wuxuu noqon doonaa mid xawli ah ilaa marka ugu horeyso uu gaaro meesha ugu sarreyso. Calaamadaha ugu horreeya la arki doono waxay noqon doonaan
sida hergabka oo kale. Difaaca jirka oo dagaal culus ka qaadi doona ayaa hoos u dhigi doono infekshanka, una xadidi doonaa isfiditaankii uu waday fayraska. Kastoo hardanka uu jiro, weli waa la arki doonaa markii la dhaafo 12 isbuuc doonaa marxaladii labaad ee chroniga, kaasoo gaari karo 2 sano ilaa 10 sano. Haddii aan soo qaadan T-cell, tirada T-cellka mar walba waxay cagsi ku tahay tirada fayraska ah. Dabatan waxay sameynaysaa macno gaar ah. T-cellka marka koowaad hoos ayuu dhacaa, balse difaaca jirka ayaa wuxuu sameeyaa weerar rogaal celis ah. Marxaladan waxaa la waynayaa calaamadihii caadiga ahaa. cudurkan wuxuu noqonayaa chronic phase. kadib waxaa bilaabmayo in uu kordho fayraska. T-cellkan wuxuu bilaabayaa inuu si tartiib ah u dhaco ilaa uu burburo 1 ilaa 2 bilyan maalintiiba. T-cellka tiradiisa waxay ka sii badnaan doontaa 500 oo cell millimeter cubic kasta, igan in uu weli iska difaaci karo infekshanada kale, inkastoo infekshanada qaarna uusan waxba ka qaban karin sida tuberculosiska ama TB-da. Marka la soo gaaro marxaladda chroniga, uu noqdo mid waxba laga qaban waayay, waxaa la arkaa in bukaanada qaar ay helaan loo yaqaano X4 strain oo weerarayo CXCR4 ay yihiin seerasyada kale ee T-cellka. Haddaba strainkan wuxuu aadayaa lymphoid tissue-ga wuxuuna burburinayaa dhammaan T-cellska 90%. Strainka X4-ka ma saameyn doono bukaanada qaar, darteed dhibaatadiisa way ka yaraan doontaa. Waxba kama bedeli doonto fiditaanka cudurkii. balse markii uu hoos u dhaco T-cellka u dhaxayso 200 ilaa 500 oo T-cell, jirkii limfiga ayaa barari doono, loona yaqaano lymphadenopathy. waxaa sidoo kale lagu arki doonaa oral hydroxybutyric wax loo yaqaano cadcadaan ku dhaca carabka iyo virus. sidoo kale oral candidiasis yaqaano yeast infection. marka bukaanku uu ka yaraado 200 oo T-cell per millimeter cubic, aad ayuu cakirmaysaa. HIV-gan wuxuu noqonayaa AIDS. waxaan imaan doono qandho joogto ah, daal, tabardarro, miisaanka u dhaco, shuban. fayraska ku jiro dhiigana waa uu siyaadayaa si xad dhaaf ah. marka la marayo marxaladan, waxaa siyaadi doono xanuunada qaar sida pneumonia, cystic pneumonia iyo fungal infections. xaaladaha kansarada burooyinka sida Kaposi sarcoma oo lagu arko maqaarka iyo meelo kale. sidoo kale primary lymphoma kaas oo laga helo maskaxda. haddaan qofka AIDS qabo wuxuu dhimanayaa xanuuno iska fudud oo qofka caadiga ah uusan waxba u dhibeynin, sida hergabka, xanuuno yar oo iska fudud. haddaba gudbinta markaan u imaano, u arkaa dhulka Mareykanka, laakiin nin inuu naag gudbiyo aad ay u badan tahay. sidoo kale dumarkana way gudbin karaan ragga, maadaama HIV-ga laga helo xubinta taranka dumarka ee naagta AIDS-ka qabto. 75% dadka qaba AIDS-ka ayaa waxay ka keenaan galmada. waxyaabaha kale ee lagu kala gudbiyo waxaa ka mid ah daawooyinka la isla isticmaalo ee cirbadaha. hooyada waxay gudbin kartaa cunugeeda u gudbinayso placentada ama dhalmada xilligeeda ama naas nuujinta. waxyaabaha kale waxaa ka mid ah cirbad si kedis ah kugu durtay ama dhiig lagugu shubay qof qabay AIDS-ka. diagnosiska marka la sameynayo, waxaa lagu gaaraa go'aanka sida antibody iyo antibody antigen iyo RNA DNA test. antibody test waxaa la raadiyaa antibodiyada ku jira jirka ee HIV soo horjeedo. haddii la helo antibodygii HIV-ga positive, antibody antigen test wuxuu fiiriyaa ama raadiyaa HIV antigen, waxaana la isticmaalaa antibodies diyaarsan. RNA DNA test waxaa loo isticmaalaa in la baaro koobiska RNA-ga iyo DNA-ga viralka. aad ay qaali u yihiin. waxaa lagu talinayaa inaad isticmaasho antibody antigen test ama aad isticmaasho antibody test oo lagu daray DNA RNA test. waxaana loo isticmaalaa labadaas dambo, DNA RNA test iyo antibody test, in lagu xaqiijiyo. markaan u imaano daaweyntiisa, waxaa la ogyahay in daawo uusan leh, balse waxaa jira daawo caawinayo qofka in uusan u dhigayo jaaniska uu gudbin lahaa. waxaa loo yaqaanaa antiretroviral drugs ART. ART-gu ma aha hal daawo,
laakiin waa daawooyin isku xirxiran oo loo isticmaalo in lagu daaweeyo HIV-ga. sidoo kale wuxuu hoos u dhigaa fayraska inuu aad u sare u siyaado iyo in systemku uu dhibaateeyo difaaca jirkana kor ayuu u qaadaa.